taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guusha nololeed. sida aan wada ognahay bilihii iyo isbuucyadii la soo dhaafay waxaa jiray dagaal halgan ah oo ummadda Soomaaliyeed ay ku jireen. haddaba tilaabooyinkii ugu muhiimsanaa dagaalka halganka ee ummadda Soomaaliyeed ay kula jireen argagixisada Al-Shabaab ayaa haatan la qaaday. marka aan ku leeyahay tilaabooyinka ugu muhiimsanaa waa duulaankii ugu weynaa oo ay soo qaadeen beelweynta Mudulood oo ay hogaaminayaan xildhibaano rugcadayaal ah oo ah saraakiil hore oo ciidan iyo siyaasiyiin dhowr iyo 10 sano ku soo jiray siyaasadda. dagaalka ka dhacay deegaanka Masaajid Cali Gaduud waxa uu ibafur u yahay in mustaqbalka dhow dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed gacantooda ay soo galaan degmooyin caan ah kuwa oo Al-Shabaab ay muddo ku naaloonayeen sida degmada Aadan Yabaale gobolka Shabeellada Dhexe, degmooyinka Galcad, Elboor, Haradheere iyo degmooyin kale kuwa ku yaala bariga iyo dhulka xeebta ah ee gobolada Mudug, Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe. deegaanka Masaajid Cali Gaduud waxaan rabaa inaan kula sheergareeyo qiso hadda ka hor igu qabsatay aniga qaasatan. wuxuu ahaa bartamihii sanadkii 2019 waxaan ka soo safray magaalada Muqdisho. waxaa gaariga ila saarnaa dhalinyaro fara badan kuwa oo iyaguna ka soo safray Muqdisho kuna sii jeeday waqooyiga iyo bartamaha Soomaaliya. deegaanka Masaajid Cali Gaduud waxaa ku yaala checkpoint ay aad u muhiimad u siiyaan ciidanka ururka Al-Shabaab oo ay dadka ku baaraan. waxaa dhacday Masaajid Cali Gaduud markii aan nimid inta aanan imaanin ka hor gabar ayaa agteeda fadhisay. gabadha waxay ii sheegtay inay ka timid magaalo la yiraahdo Shaw oo ku taala baadiyaha Jowhar. weligeena ma tagin aadna uma aqaan laakiin waxaan qiyaasaa inay ku taalo wadada wareega ah ee markii Jowhar laga baxo oo la aadayo dhanka Buqa Qable sida aan qiyaasay. marka aan marayna Masaajid Cali Gaduud oo ay xili gabaldhaca tahay oo maalinta gaariga soo raacna maqribkeedii kale ay tahay, gabadhii way degtay waxa ay aaday guri. aniga waxaan u maleeyay inay suuli ka rabto ama ay maaragtay salaada ku soo tukanayso. gabadhii markii ay gaariga ku soo laabatay waxa ay ugu tiri Cabdullaahi oo gurigan waxa degan sodohdeeda wiilka ay qabo hooyadiis, asagana wuxuu joogaa buuraha Galgalo ee Puntland wuxuuna ka tirsan yahay mujaahidiinta. anigana gabadha waxa ula soo sheekaysanay sidii gabar caadi ah oo xamar gaari ka soo wada raacnay. ka warane waxa waa boos ugu dhagay sheekada dhan waa ugu noqotay oo soo baxnay gaariga soo raacnay. ayada cabaar kadib way wareysanay maxaa kugu dhacay waa isbedeshay problem ma jiro saan maxaa waay. aniga xogaa isbaboojeena xaleemay wallahi niyadan waxa kale yahay balaayo ku soo raadsatay, balaayo kula soo safartay, war mee dhimato saa u socon aniga waxa soo gaaray meeshuu hadafkayga ahaa oo safarkayga ku ekaa. marka meesha ku degay ayada intaas kuma harin waxa dhahday abuu nambarkaaga ii soo qor waa is soo wacana. ayada horta iska daacadeen miskiin ahayd laakiin ay soo wacay balaayo ku soo wacdaan dhahay lambar beena u dhiibay oo lambar markaas maskaxda ka alifay oo ma aqaan wallahi qof la Axmed Nuur Jimcaale lahaaya xitaa ma ogaaday ninka hormuudis kale lahaaya xitaa ma ogi lambarkaas u dhiibay. markii sidii asku keen dambeysay balaayada dhashay balaayo ku soo wacday muuqaalkan asxaabtaada u sii shargare qisadan qisa la mid ah ama qiso ay boliga ma kugu dhacday haddaysan adiga kugu dhicina qof ay ku dhacdo ma taqaanaa haddii aad qaanid nala soo shargare waa mahadsantahay. halkan waa ummadda media 24 aan wada socono guuleysta asxaabay.